bal hadda waxaad qiyaastaa ugu dambayntiina qof bini aadama oo weliba qof keliya maahae lamaano ah oo isku cindanaa oo deedna duruuftu ay ku kaliftay in muddo 10 sannadood ay darbi jiif noqdaan dabadeedna mar kaliya noloshooda ay isbedeshay oo si caadi u ismay bedeline halka ugu sarreysa hadana tagay lamaanahaasi waa lamaane madow oo marykan oo shaqooyinkii inta laga eriyay ninkuna waxa uu ka shaqeyn jiray qolyaha ilaalada ama security-ga loo yaqaano gabadhuna waxay ahayd xisaabiye dabadeedna mar kaliya wax isugu beerbeeraan deedna sida boqolaal kun oo qof oo kale oo dalka Mareykanka oo wadamada adduunyada ugu hodansan ama wadanka ugu hodansanba caalamka oo dhan ayay markaasi darbi jiif noqdeen haddaba marka ilaahay uu wax ku bixinayo shimbrun baa lagu soo diraaye lamaanahan sida ay isu jecel yihiin iyo muxubbadooda iyo galgacalkooda iyo sida aanay mar kaliya u niyad jabaynin iyagoo karaatoonna goglada iyadoo qabooba ah karaatoonna deedna huwada mararka qaarkood ayaa nin wariyaa oo ka tirsan wargeyska loo yaqaano San Francisco Chronicle uu sheekadooda deedna ka warramay waxa uu sheegay lamaanahaasi in galgacalkii iyo wanaagga ay isu qabeen mar kaliya inaanu isdhimin niyadooduna ay xaamid tahay oo aanay niyad jabin oo ay jecel yihiin in noloshooda wax ka bedelaan sheekadoodiiba haddaba waxay soo jiidatay aadamuhu isku wada mid maahe nin cadaana oo milyaneera oo gurigiisu $4 milyan yahay oo laakiin xayraannimada wax ka yaqaanay oo hore busaaradda isagu u soo maray taasoo kaliya iskaga mid ahaynaya inuu busaaradda soo dhadhamiyay ninkan cadaanka ee milyaneerkii waxa kaloo ay iskaga mid ahaayeen xagga da'da labadooduba waxay ahaayeen 61 jir dabadeedna ninkaasi wuxuu aad u dareemay labada qof ee sida isu jecel ee galgacalka iyo wanaagga isu haya ee haddana duruufta ay ku qabsatay inay gidaarka wada seexdaan dabadeedna wuxuu sheegay ninkii cadaanka ahaa ee maalqabeenka ahaa inuu ilmeeyey markii warbixintooda uu akhriyay dabadeedna intuu tagay oo jaraa'idkiiba horta email u diray oo uu ka codsaday inay la xidhiidhiyaan deedna lamaanihiibu u tagay madowga ahaa noloshoodii buu ka waraystay deedna wuxuu go'aansaday in guriga uu ku nool yahay oo ka mid xaafadaha ugu ladan ama degmooyinka ay degaan dadka maalqabeenka ah ee gobolka California inuu markaasi keeno oo ay kula noolaadaan muddo sanada ayay imika haddaba gurigaasi kula noolaayeen nimco walibaaba nusqaan leh waa tan la yidhaahdo xaafadaasi dadka degan ee maalqabeennada boqolkiiba 2 keliya ayaa dad madow 98 kale waa dad cadaan ah sida ninka maalqabeenka ee soo hooyay oo kale horta xaqii nolosha dhiishii faqorkay tuureen guriga la yaab lay ku nool yihiin cunto hadalkeeda badaa inay ka warwaraan laakiin waxa dhibaato ay noqotay markastoo daaqadaha ay ka arkaan guryaha kale ay ninkaasi jaarka ahaayeen ayaa bilayska loogu yeedhaa oo la yidhaa xaafadii waa la soo galay waxa loo qaataa dad doonaya inay xaafadda bililqaystaan ama ay wax ka xadaan dabadeedna markasta waxay noqotay in ninkii laga xaqiijiyo in lamaanahaasi ay la noolyihiin isaga adoo markii dambe dhibaatadaasina way iska yaraatay oo bilayskii iyo jaarkiiba way la qabsadeen lamaanahan madowga ah ee xaafadooda ku soo biiray haddaba lamaanahana iyaguna ismay dhiganin oo may odhanin waa nimcaysateen ee dib ha ugu noqonina suuqii xayraanka iyo darbi jiifka ee waxay sameeyaan maalin walba intay magaalada bartakeeda ku noqdaan oo ay bas raacaan ayaa waxay sameeyaan inay niyada u dhisaan dadka marxaladii ay ku jiri jireen oo kale iyaguna ku jira ee darbi jiifka oo ay yiraahdaan waa ka bixi karaysaan ha isdhiibina ha niyad jabina dabadeedna waxa yara ay ku dhaamaan de ay ama dawladdu siiso ama ninkaasba ay gurigiisa ka soo qaataan ayay iyaguna ugu deeqaan dadkii darbi jiifka ahaa oo waxa cashar u noqotay ninkan maalqabeenka ee milyaneerka ee cadaanka ee aan iyagaba iska weynaysiinin ee gurigiisii kula nool una ogolaaday inuu fursad siiyo ninkan haddaba waxa uu sheegay inuu la yaabay oo ay aad u soo jiidatay lamaanahaasi jacaylka ay isu qabeen iyagoo gidaar wada seexda waxyaabaha kale ee ninkan uu sheegay inay aad u soo jiidatayna waxaa ka mid ah inuu yidhi lamaanahani noloshuunbaa
dhibaato ay qabsatay oo dhibaatadiina mid kale ay ugu biirtay oo wuxuunba isu yara dhiidhiibee niyadoodu sida ay cirka u tahay ee mar keliya lamaanahaasi aanay isu dhiibin marka ilaahay qofka wax la doonayo waa cajiib waxa loo soo diraa oo nin maqaal ka qora qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkii caalamka oo ay idin kala socoteen stuudiyaha telefishinka Universal waxaanad moodaa in ninka cadaanka ee milyaneerka ah uu si wanaagsan u dhugtay heesta ay wada qaadaan Axmed Cali Cigaal iyo Saynab Cali Baxsan oo oranaysa وارون كبرك والجودما قضب كاسي أي وجود بيه ورارك عالم كا وأنو يدي كسو تبين إني استوديوها تلفزيون كيونيفرسال مقالة هرجيسة وأنا عبد السلام هررية يا أصحاب تيدو يدي كجت تجين إنتي ندبو كل ما إنه ملك استو عالم كا يدي نجلس عتين نبتقليو